assalaamu calaykum daawadayaal. safarkan waa mid xiiso badan waa inuu ku tagi doono dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida. haddaba daawade boorsooyinka ka xirxiro si aynu uga degno gobolka ugu wax soo saarka badan dunida. gobol baaxad ahaan ka yar Soomaaliya ama Kenya, kana dhaqaala badan guud ahaan qaaradda Afrika. gobol hoy u ah 157 milyaneer iyo in ka badan 660 oo milyaneer. California waa gobol dhaca koonfur bari dhulweynaha Mareykanka kaasoo saaran badweynta Pacifica. waxa uu ku fadhiyaa masaafo dhan 423 oo kiiloomitir laba jibaaran. waddanka Sweden ayaa ka baaxad weyn ama Kenya, sidoo kale Nigeria ayaa laba jeer ka weyn ama Pakistan. waxaa ku nool in ka badan 39 milyan oo qof. waa gobolka ugu dadka badan guud ahaan Mareykanka, waana gobolka saddexaad ee ugu baaxadda weyn Mareykanka. magaalada Los Angeles ayaa ah magaalada ugu dadka badan. California waa magaalada labaad ee dalka. California waa gobol qani ku ah dhaqaalaha iyo wax soo saarka. waa gobolka ugu dhaqaalaha badan dunida. dhaqaalaha California waa 3 trilyan. haddii ay California ahaan lahayd dal, waxay noqon lahayd dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. sida la og yahay, gobolku waxa uu ka dhaqaala badan yahay wadamada UK, Faransiiska, Hindiya iyo Brazil oo safka hore kaga jira wadamada caalamka ugu dhaqaalaha badan. marka 7 meelood loo qaybiyo dhaqaalaha Mareykanka, meel ka mid ah waxa soo saaray gobolka California. gobolkani waxa uu soo xareeyaa dhaqaale 3 trilyan ka badan. dakhliga qofka Californianka soo gala oo kor u dhaafaya 76,000 oo dollar sanadkii ayuu gobolkaasi leeyahay. sidoo kale marka laga reebo wadamada Mareykanka, Shiinaha, Japan iyo Jarmalka, dhammaan inta kale ee wadamada caalamka ee soo hadhay, California waa ay ka dhaqaala badan tahay. si la mid ah, gobolku waxa uu ka dhaqaala badan yahay guud ahaan qaaradda Afrika iyo Australia oo la isku daray. waxa kale oo ka dhaqaala badan yahay guud ahaan qaaradda Koonfur Amerika oo ay ku yaalaan laba ka mid ah dalalka kooxda 20-ka ah ee warshadaha ka horumaray, afka qalaadna loogu yeedho G20. waa gobol laga helo dad leh kumanaan jinsiyadood oo kala duwan. waa gobol hoy u ah bulshooyin kala nooca, sidoo kalena hoy u ah 3 ka mid ah 10 shirkadood ugu qaalisan dunida by market capitalization. sidoo kale 3 ka mid ah 10 qof ee dunida ugu hodansan ayaa ku nool gobolkaasi. shirkadaha ugu wax soo saarka badan ayaa degan, waana gobol asal u ah curinta fikrado cusub sida internetka oo gobolkaasi lagu daaqaaday, cuntooyinka fudud iyo shirkadaha filimaanta sameeya. dhaqaalaha gobolku waxa uu ka soo xaroodaa badankiisu ganacsiga, tiknoolajiyadda, dhismayaasha iyo bangiyada. magaalooyinka Los Angeles, San Diego, San Francisco iyo San Jose ayaa ka mid ah magaalooyinka gobolkaasi. magaalada Los Angeles Bay Metro ayaa ka dhaqaala badan guud ahaan waddanka Turkiga. sidoo kale waxay warbixino kale sheegayaan in baabuurta taalla California ay ka badan tahay kuwa yaala Faransiiska. sida lagu sheegay daraasad, 60 qof ee gobolkaasi ku nool mid baa milyaneer ah. la wadaag asxaabtaada warbixintan haddii aad ka heshay, sheer garee oo nagu soo biir oo subscribe saar channelka. mahadsanidiin daawadayaal.